بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال kusoo dhawaada barnaamij aan ugu magac darnay taxanaha xikmadda kaasoo inoo noqon doona mid taxanaha oo aan ku soo gudbin doono xikmado iyo oraaho ay yiraahdeen shakhsiyaad muslimiin ay kuwa aan ahaynba kuwaasoo ujeedkeedu tahay in aynu kala baxno ama aynu ka qaadano inta sanayna anfacaysa adduunyo iyo aakhiraba. barnaamijkan taxanaha xikmadda qaybta koowaad waxaynu ku soo qaadan doonaa oo sheegi doonaa xikmadihii iyo oraahihii uu nooga tegay Allah u naxariistee Sheekh Axmed Diidaat. ku soo dhawaada baafinteeda. waxaana oraahihii iyo xikmadihii ugu caansanaa ee uu nooga tegay ka mid ah kuwan aynu maanta soo qaadan doono ama aynu isu sheegi doono. qofna markii uu dhalanayay ma uu dooran midabkiisa, nasabkiisa, hantidiisa iyo cidda uu noqonayo, ee haddii aadan abuurka ixtiraamayn abuuraha ixtiraam. cadowga ugu weyn ee islaamku waa muslimka jaahilka ah, kaasoo xanaaqisa iyo xamaasadiisa ku samaynaya falalka sumcad-darrada usoo jiidaya islaamka. dadka kalena markay arkaan waxay moodayaan inuu islaamku yahay isaga oo kale. anigu muslim baan ahay, islaamkuna waa diin dhammaystiran, laakiin anigu ma yihi insaan dhammaystiran. haddii aan gef ku dhaco islaamka ha canaananina ee aniga canaanta. qofka gudaha ka wasakhaysani ma suuraysto inay jiraan dad wanaagsani. dadka kuwa ugu dhaqanka xumi waa kuwa marka ay cadhoodaan wanaaggaaga inkira, sirtaadana faafiya, noloshaadana diida, waxaanad ahayna kaa sheega. annagu ma nihin kuwa ka dibdhacsan reer galbeedka, balse waxaan nahay kuwa ka dibdhacsan islaamka. caalamka waxa aan uga harnay kadib markaan ka tagnay diinteenna. waa inaad ilaahay ka filataa waxaanu garaadkaagu sugayn. ilaahay wax walba uu awoodaaye. joogiddaada iyo la-aantaadu islaamka waa isugu mid, balse adigu islaamka la-aantii waad dumaysaa. islaamku adiga la-aantaa waa guulaysanayaa, laakiin adigu islaamka la-aantiis waad khasaaraysaa. waxaan aaminsanahay in alla yahay ka kaliya wax abuura, waxa uuna noo soo diray rasuullo iyo nebiyo si ay noo hagaan. haddii aad jeceshahay alleh waa inaad jeclaataa nebiga sallallahu calayhi wasallam. haddii aadan jeclaan karin midka aad arki karto, sidee ayaad u jeclaan kartaa midka aadan arki karin? nolow keliga, ha yeeshee cidna kelinimaha badin. u noolow sida qof weyn ee ha ku noolaan isla weyni. alle u noolow dartiisna u dhimo, abuurkana abuurahooda u daa. dumarku iyagu waa hooyada, iyagu waa walaalaha, iyagu waa inanta aad dhashay, iyagu waa eedada, iyagu waa habaryarta. waa inay noqdaan kuwo la jecel yahay oo aan iibahayn. anigu ma xayeysiinayo. nin ayaa ku yidhi Sheekh Axmed Diidaat, dumarku waa fidnada adduunka. Sheekh Axmed Diidaat ayaa ugu jawaabay, haa waa runtaa, waan kugu raacsanahay 100%. waayo nacas adiga oo kale ah ayay 9 bilood lasoo dhibtoodeen oo adduunka keeneen si uu dumarka ugu tilmaamo dhibaatada adduunka. haddii aad cunto buug fasahaadsan, jirkaaga ayaa fasahaadaya. haddii aad akhriso buug fasahaadsan, garaadkaaga ayaa fasahaadaya. iska jira waxay qoraayadu garaadkiina u yeedhinayaan. inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybteena koowaad ee taxanaha xikmadda. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.